sheekhow meesha wax dhaqaalaha ma lagu qabaa inta un baa loo tegay markii horeba diin looma tegin waxoogaa in guriga loo tegay ma lagu haystaa jawaabteedu waxa weeye nidaamka waddanka ka jira ee dhaqaale waa nidaamka la yidhahdo annidaamu ara'samaali hanti goosad waay hanti goosadkuna caadatan wuxuu u qaybiyaa dadka 3 dabaqo dabaqada ugu sarreysa waa dabaqada hantiilayaasha ah oo sharikaadka waaweyn leh oo waddanka dhaqaalihiisa gacanta ku haya cid walbana ayagay u adeegtaa dabaqada labaad waa dabaqada ayaga u shaqaysa ama waxoogaa uu bartay buu ugu shaqeeyaayo xafiis buu fadhiyaa ama ma ahee wuu xamaalaa oo alaabta culculus iyo warshadaha iyo culayskooda iyo waxaasaa lagu raraa waa dabaqada labaad wey dabaqada saddexaadi waxa weeyaan waa dabaqa noloshii la qabsan weyey doontii noloshay ka dhaceen waa qolada meeshan aan ka nidhaahno jokoraha xaggaana soomaaligana aynu dhihi jirnay ciyaal derbiga waa kuwo macnaha waxa weeyaan ayagu ay dantoodu tahay uun inay 24 saac sarqaansanaadaan mukhadiraadka iyo xashiishta iyo waxaasay macnaha waxa weeyaan maaragtay daroogada iyo waxaasay isticmaalayaan dawladduna waxoogaa cayd ah oo daruuriyaadkooda iyo guriga iyo nolosha iyo waxoogaagaasa la siinaya loo soo tuuraya qoladaasi marka nolosha kuma tirsana iyagu qolada dhexe bay marka u badan yihiin dadkii meesha tegayoo weliba qolada dhexe qaybtooda dambe oo dadka xamaala ah way xamaalaan ha ahaatee ha xamaaleene waxoogaaga soo galaayay tacab iyo rafaad buu kusoo galaa tacab iyo rafaad soomaali baan wahsi ku naqaanay meelahaasaan waxaan ku aragnay soomaali markuu waagu bariyo salaada subax uu tukado kabaha uu gashado casarka kadib iska furay si uu wax u xamaalahayo u kala dejinayo ha meel taagtaagnidii iyo taqriiban shaxaadkii iyo meesha ma jirto haddaadan adigu isnoolaynin bas waay sidaa unbaad doonta uga dhici marka taqriiban nolol kadxi iyo rafaad iyo waxoogaa lagu soo saaray bay ku nool yihiin sidaa ay tahay haddana waxoogaagaa ay soo saareen ama caydda loo siiyey oo kabmada lagu siiyey intaa yartaa haddana intaasaa weli la hunguriyeynayaayo nimankii ku shaqaystay inay haddana dib ugu noqotaa la rabaa ha gurigii kiradiisii telefoonkii biilkiisii korontada biilkeedii yani gaaskii raashinka lagu karsanayey baabuurkaaga yani waxa weeyaan shidaalkiisii intiiba ayagay dib ugu noqotay marka yani sida dameerkaaga inta lagu shaqeeyo oo lagu xamaalo waxoogaana soo looma tuuro nidaamkaa waxay u dejiyeen markaad fiiriso waxay isku beesgareeyeen ruuxu wuxuu shaqayn karo iyo kharashka uu isticmaali karo inaysan waxba uga soo hadhin bay marka qoondeeyeen maxaa yeele hadday wax kaaga soo hadhaan ood wax meel dhigto haddaad wax meel dhigto berrita waxaa imaanaysa inaad ka kaaftoonto sooma oo meelahan iyo intaad ka timaado afrika iyo ganacsi bilowdo oo nolol xora bilowdo taasaad imaani sooma marka waxay rabaan inaana xadhiggana aad ku xidhnaato ayaga aad u shaqayso subaxdiina u kalahdo yani waxoogaagaana ayna noloshaadu dhaafin saas maana tii intaa ahayd walba geela hebel kuwa dabayaal baanu sii dabanaalahay kuwaasaynu inaguna sii dabanaalla kuwaas intaasaan sii dabanaalla ka ugu rooni waa kuwa seefgareeya ninka macnaha qaraabo goyska waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan qolaa jirta yani meelahan xoola la timaada oo waxoogaa dhaqaalaha iyagoo gacan qabsi wata la yimaada marka sheekhu se wax u jiraan jawaabtu waxa weeye ninkaasi ama qaraabo goys bu ahaa markuu xaggaa jooga oo $50 lagama heli jirin ama ma ahee wuxuu ka kasban jiray xaaraam oo khayaanu wax ku maamuli jiray asagoo shaqeeya buu u sheegi inuusan shaqaynin caydna uu ka qaadan yani waxa weye waxoogaana wuu shaqaysan ama xaaraan buu isku soo abaabulay nin ilaahay u naxariista waa jiraayo faraj u furay nin laakiin aqlabku meeshu meel wax laga keeno ma aha meel wax laga dhigana ma aha noloshaasi wareegaysa ee daruuriyaadka iyo asaasiyaadka nolosha gurigii iyo cuntadii iyo intan meelo badan lagu haysto intaa unbay meesha ku hayaan waa aqlabkoodii isay u badan yihin macna oo haddana rafaadkaasi ku hayo daliil waxaa kugu ah rag fara badan markii aad tidhahdo war meesha baad ka guurtaan oo dhibkan hadduu idinku haysto afrikaba waxoogaa waa lagu haystay nolole maad iska tagtaan waxay ku leeyihiin 10 ilmood ama 5 ilmood baan meesha ku hayaayo 20 sano u jooga ama 10 sano tigidkii waxaan kaga bixin lahaa baan haynin balofir 10 sano u jooga 20 sano caruurtiisa wuxuu tigid uga dhigo kusii qaadana ma hayo hadduu rabana waa inuu daynto marka waa xaqiiqo jirto xaqiiqo inaynu la tacaamulno u baahan way macnaha sidaa daraaddeed haddii arrinku marka sidaas yahay oo nolol darradaasi meesha ka jirto dadku may ka soo cararaan waa su-aal iyaduna imaan karta meel kadeedkaasoo dhan ka joogo dadku may soo cararaan jawaabtu waxa way qaar horta waa soo carareen oo waa inala joogaan
in badan oo ilaahay waafajiyo soo carartay waa jira carruurtoodii la soo carartay tan labaad weeyaane dadku waa laba nin waxa weeyaan waa nin markuu meesha tegey wuxuu meesha la tegey iyo meesha waxoogaaga yarkay isku hagaagsanay meesha yaalle yani waxa weeye yani meeshan aan oolin waxoogaaga adduunyada markuu tegeyba yani iyadaas ku xasilay aakharo iyo cadaab iyo diin iyo akhlaaqna ayna waxba ka gelin yani taqriiban lax dhukan bay Soomaalidu yidhahdaan col iyo abaaba moog qolo waa qoladaas wax alla wuxuu og yahay oo aan gurigaas iyo waxoogaaga caydha ah iyo baabuurka aan ka ahayn ma jiro qolo waa qoladaas waa in badan say yihiin waa qolona waa qolo waaqicay kusoo dhexdhaceen iyo khatartay ku dhex jiraan dareemaya oo aad iyo aad u qoomamoonayo aad u murugsan kuwaasina inay soo cararaan waxaa u diidan 3 arrimood mid ka mid a midka koowaad weeyaane ragga qaarkii carruurtoodii baa meesha ku waaweynaatay carruurtoodii ama iyagoo waaweyn bay geeyeen mar hadday carruurtaadu meesha ku waaweynaatana adoon qancinin ma kaxayn kartid carruur waxoogaa la daajiyeyna saad ku qancisa waa adagta carruurtii waxay isu sheegeen kuwaa meelahan la keenayoo malaha dib loo celiyey qaar la siray baa jiro carruurta soo siray oo dalxiis baan tegaynaa inta la yidhi way isu sheegeen carruurtii waxay dhaheen dalxiis baa la isku kaxeeyaa markaasa africa la isku celiyaa dalxiis kasta haddaad u sheekaysa xataa ilmahaagi waa yaqaana inaad sirayso ragga qaarkii marka kadeed wuxuu ka haystaa carruurtii kama imaan karo oo keligii ma imaan karo ayagiina inuu soo kaxeeyo diide iyagana go-aan kale yani taqriiban markaan tabar hayeyna tala ma haynin haddoon tala hayana tabar ma hayo ta ninkaa haysata waa midda ninka labaadi waxa weeye isagii baa hayikacsan inuu hayaamo noqduu doonaya laakiin xaaskii baa lagu imtixaanay oo islaantii baa isagana yani waxa wey lugta haysa ma tegaynay leedahay oo africa iyo balaayadeedii baad nagu celin asaguna meel u dhaqaaqa male xaaskii kama imaan karo carruurtii kama imaan karo yani waxa weye waa inuu ku dulbaktiyo ta saddexaad waa gabadh wanaagsan haweeney wanaagsan oo wadaad awey oo carruurteediiyo waxan ay timid aada uga danqanaysa laakiin nin xun baa lagu ibtilay iyadana oo iyadii baa la war inaqar war inkaari kugu dhacday ma waxaanaynu fiirsan karnaa markaasuu leeyahay xageed aad inkaari kugu dhacday africa waa gaaje mabda ay rumeeyeen dadkii meesha hadday tageenna waxaaba yani ka mida tala saarashadii ilahi baa meesha ka baxday in ilaahay la tala saarto mabaadidaas oo dhan baa dhammaato waxayna iska dhaadhiciyeen dadku africa inay tahayba meel wixii galaayo uusan ka soo noqoninba waa lagu baktiyaa war inkaaru idinku dhacday intan la ekaanayseen soo africa maydaan ku barbaarin kuwii ka soo guuray oo afri ka yimid inay ka raystaan may uma darsanin alxamdulilah bay ku hayaan in alla nin ka soo guuray saas way macana qaar badan marka waxayba rumeeyeenba meeshii laga tegay iyo dhulkay ka tageen yani wax weeye bay balaayo u haystaanba ma dhul shisheeyaa marka wax ku tari soomaalidu waxay yidhahdaan saddex arrimood kuma daryeesho yidhahdaan 3 kuma daryeesho waana xaqiiqa waxay yidhahdaan dumaal kuma daryeesho doqonino kuma daryeesho dal shisheeyana kuma daryeelay dhahan caws jiilaan waa lama huraan ama ha kuu kharaaraato ama meel god haddii la galaan laga soo baxayna ha noqoto caws jiilaan waa dhulkaaga saas maana waa lama huraan isagoo maad kusoo noqon tala saarasho ilaahi subxaana watacaala iyo kalsoonidiisa marka yani in lagu qaabilay u baahan tahay waxyaalahaasi marka waa xaqaa'iqda meesha jirta way waktigaa dhammaaday tacliim ma leedahay haddaad idhahdaan waxoogaa dadka waxaa ugu roon dadka wax barbarta laakiin soomaali inta wax barata 100% ma aha khaasatan Australia oo kale waxaa ka jira dawladdu dayn bay siisaa ruuxii wax baranaya weliba dayn aan dulsaar lahayn baa la ii sheegay yani ninkii ii sheegay baa kolley dadkii ii sheegay bay mas-uuliyaddu saaranta laakiin dayn aan dulsaar lahayn bay ii sheegeen laakiin soomaalida inta wax barataayo waa farakutiris maxaa yeelay balaaya africa ka soo dhawaaqaysa isaguna walaahow buu ku jiraa soomaali waa wareersan tahay inta wax barataayo marka waa farakutiris xataa meelaha jaanisiyada waxbarasho ay ka jiraan ayib diini ma ka jirtaa diini waa intaan idiin sheegay wadaado dhalinyaro oo ordahayo oo qayliyahayo waa jira wax daba qabto isle laakiin badweyn baa lagu dhexdhacayo iyadana waxay baajin karaan waa iska yaryahay xaqaa'iqdaasa marka meesha taala war iyo murtidii waxa weye dadkii meeshaa tegey mustaqbalkoodu waa majhuul khaasatan dadkii yaryaraaya ama meesha lagu dhalay ama meesha la geeyey iyagoo yaryar dadka laba mid mustaqbalka dad ilaahay intuu u naxariisto naxariis ilaahay ay ka daba tagto soo laabto waddan islaam kusoo laabto kaasi inay wuxuun u badbaadaan waa suurtagal kii laakiin meeshaa uun daysto oo halkaa loo daayaayey mustaqbalkiisu waa maxtuum markhaatina waxaa kuugu filan bulsho waxaa ka horreysay soomaalida
iyo bulshooyinka kulligood muslimiinta waxa ka wada horeeyay wadanka Australia bulsho islaam oo tagta waxa ugu horeysay nimanka la yiraahdo Afghaanistaaniinta ugu horeeyay oo waagi ay wadanka furanayeen qolyahan macna waxa weeye reer Yurubka bay la socdeen oo ciidamo u hayeen waa nimanka geela wadanka geeyay baa lagu yiri wadan yaani geel waxa iska jooga wadanka awsan ilaahi oo gaadha nimankii nooca Afghaanistaaniyiinta ay Afghaanka ahaa masahal masaajid oo masaajida wadanka kamida nin ayaga kamida ku arkimaysa odayaashiina waa geeriyoodeen waxay ku geeriyoodeenba caruurtoodiina waa 100 sano 150 200 sano caruurtoodiina gaaladaas ku darmadeen waxay ka tageen raad iyo aasaar ah masaajid meel ka dhisan oo ayagana sidii mesela waxa weeye yaani guryaha loo tago yaani hidiga dhaqanka lagu kaydo kale museum leeyahay yaani meelahaas oo kale iska noqday odaygii ugu dambeeyay maraha masaajidka markuu ka geeriyooday gacantiisa uu ku jiro si dhimanay buu dawladda hoose gacantooda galay oo yiri yaani waxa way ku wareeji masaajid noocaas oo qadiim ah ba aasaartoodii ka dambeeyay caruurtoodii aaway waa gaalo cadcad ku jiraan marka waa masiir maxtuum awey ninkaan ilaahay u naxariisto subxaanahu wa tacaala oo dhulka uusan soo dhaafinin arrintiisu waa iska cadiya marka dadka ha loo duceeyo dadkaas war murtidii waxa weeye dadka ha loo duceeyo ninkii ku socdowna iska baaji ilaahay kala saarto subxaanahu wa tacaala risqi ilaahay baa bixiye meel alla meeshaad joogtaba waa kuugu imaan wixii ilaahay kuu qoray subxaanahu wa tacaala ilaahay lagu kalsoonaado kaydkaa iyo dhagartaa markuu rabbi aad uga soo sheekeeyey gaalada muxuu yidhi xalka muxuu ku tilmaamay in tattaquu watasbiruu soomaaye laa yadurukum kayduhum shay-a haddaad alla kacabsi iyo sabir iyo adkaysi kaashataan dhibkoodu idin dhibi maayo barbarso dhagartoodu idin dhibi mayso marka dhaqanka diinta oo taqwo ah iyo sabir iyo adkaysi oo ninkii gaajaysan uu adkaysto waa la gaajoon jiray gaajadana waa laga bixi doonaa insha allahu tacaala inna maca alcusri yusran barbir subxana wa tacaala culays kasta fudayd baa ka dambeeya war waa la dhergi doonaaye yaa la ceeboobin oo macnaha waxa weeyaan yani waa la doogoobi doonaaye yaa la dacrooni oo dadow yaa la gaaloobin oo diin iyo aakhare yaa la iisan meeshan sidaasa lagu socdaaye eed adigu wax ka doonayso waa meel lagu khasaariyo ribixdaad adigu rabtaa yani waxa weye adoo ribix raba raasamaal ma lumay bay soomaalidu tiraahdaa adoo ribix raba faa'iida raadisa raasamaalkii ma kaa lumay raasamaalku waa diinna meeshaa loo tegi maaye wardadow hala noolaado oo rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yihi waalfitnatu ashaddu min alqatli haddii lagu dilayo xataa inaad diintaada ka fitnowdo waxay ka daran tahay dilkay ka daranta inaad lagu dilaa dhaanta caruurtaadu inay gaajo u dhimataa dhaanta ayagoo iimaaniya islaamnimo leh inay dhintaan adiguna aad dhimataa dhaanta laakiin gaalnimo iyo gaalo iyo wadankood iyo akhlaaqdood iyo mustaqbalkood wardada wax laysku hadlayn karo maaha